Ku soo dhawaada Baydhabo, magaalada taariikhiga ah ee Soomaaliya oo loo yaqaan Baydhabo Janay. Taariikhda Baydhabo waxay dib u raacdaa qarniyo badan, iyadoo halyeeyadu sheegayaan in shimbir ay tilmaantay dhul bikrad ah oo biyo badan leh. Waxay ahayd xarun muhiim ah oo ka tirsan saldanadii Ajuuraan ee qarniyadii dhexe, taasoo xukuntay inta badan koonfurta Soomaaliya iyo bariga Itoobiya. Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya horaantii 199 Meeyadii wuxuu sababay burbur baahsan, laakiin magaaladu waxay mar kale soo kabsatay. Sanadkii 2002, Xasan Maxamed Nuur Shati Gaduud, oo ahaa hogaamiyihii Ra, wuxuu Baydhabo ka dhigay xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Baydhabo waxay si kooban u ahayd xarunta kamid ah ee dowladda federaalka 2006 ka hor inta aan Al-Shabaab qabsan 2009. Ciidamada dowladda oo ay taageerayaan ciidamada Itoobiya ayaa dib u qabsaday magaalada bishii Febraayo 2012. Maanta Baydhabo waxaa lagu qiyaasaa in dadkeedu gaarayo 2 milyan oo qof oo ay ku jiraan barakacayaal badan. Magaaladu waxay ku taalaa bartamaha deegaanka luqadda Maay-Maay oo ah luqad ay ku hadlaan qabaa'ilka Digil iyo Mirifle. Maay-Maay waxay si weyn uga duwan tahay Soomaaliga caadiga ah dhinacyada qaab dhismeedka jumladaha iyo dhawaaqa. Dhaqaalaha Baydhabo wuxuu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolo dhaqatada, iyadoo shaciirku yahay wax soo saarka ugu muhiimsan. Magaaladu waxay mar lahayd tirada ugu badan ee geela Soomaaliya, in ka badan 3 milyan oo neef ka hor dagaalkii sokeeye. Sanadihii u dambeeyay, Baydhabo waxay la kulantay dib u cusboonaysiin magaalo iyo kala duwanaansho dhaqaale. Mashaariicda sida Youth and Urban Regeneration Somalia iyo Baydhabo City Strategy 2023 waxay horumarinayaan kobaca magaalooyinka waara. Ganacsiyada dhismaha iyo adeegyada ayaa soo ifbaxaya, iyadoo barnaamijyada sida saamaynta ay isku xirayaan bulshooyinka barakacayaasha ah dhaqaalaha rasmiga ah. Inkasta oo ay jiraan horumaro, Baydhabo waxay weli wajahaysaa caqabado sida abaaraha, barakaca iyo arrimaha amniga. Si kastaba ha ahaatee, Baydhabo waxay sii wadaa inay noqoto magaalo muhiim ah oo leh mustaqbal ifaya.